muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay nafaqooyinka u wanaagsan caafimaadka maskaxda ayaan ka hadli doonaa insha Allah. Nafaqaadka u wanaagsan caafimaadka maskaxda waxay sare u qaadaan guud ahaan shaqada maskaxda. Maskaxda waxay muhiim u tahay guud ahaan qeybaha jirka. Maskaxda waxay joogteen ku sameysaa garaaca wadnaha, sidoo kale maskaxda waxay joogteen ku sameysaa shaqada sanbabada oo waxay joogteen ku sameysaa neefsashada qof. Sidoo kale maskaxda waxay joogteen ku sameysaa socodka qofka, dareenka qofka iyo habka qofka u fikrayo ayaa waxay ku sameysaa joogteen. Haddaba cunooyinka u wanaagsan caafimaadka maskaxda waxaa ka mid ah saliidda kalluunka. Haddaba saliidda kalluunka waxaa laga helaa noocyo ka mid ah kalluunka sida kalluunka loo yaqaano salmon. Haddaba saliidda kalluunka waxay sare u qaadaa caafimaadka guud ee maskaxda. Maskaxda bini'aadanka boqolkiiba 60 waxay ka sameysan tahay baruur ama wax loo yaqaan fat ayay ka sameysan tahay. Kala bar baruurtaasi waa baruurta loo yaqaano ama saliidda loo yaqaano omega 3 fatty acid. Saliidda kalluunka maskaxda waxay ka sameysaa unugyada neerfayaasha jirka ayay ka sameysaa. Sidoo kale saliiddaasi waxay sare u qaadaa xasuusta iyo xifdinta qofka oo waxay sare u qaadaa waxbarashada ayay sare u qaadaa. Sidoo kale saliidda loo yaqaano omega 3 fatty acid taas oo laga helo kalluunka waxay sare u qaadaa waxbarashada iyo xifdinta iyo xasuusta ayay sare u qaadaa. Sidoo kale saliidda kalluunka waxay ka hortagtaa in ay shaqada maskaxda hoos u dhacdo. Taas inta badan waxaa sababo da'da ayaa sababto oo qofka markuu weynaado waxaa la arkaa in shaqada maskaxdiisa hoos u dhacdo. Haddaba saliidda kalluunka waxay ka hortagtaa in shaqada maskaxda yaraato. Haddaba dadka si joogto ah u isticmaalo saliidda kalluunka ama dadka si joogto ah u cuno kalluunka waxaa la arkay in ay leeyihiin xaddi aad u badan oo ah unugyada loo yaqaano gray matter. Gray matter waa qayb ka mid ah maskaxda waxayna qaabilsan tahay go'aan qaadashada. Nafaqada labaad ee u wanaagsan ama sare u qaado caafimaadka maskaxda waa nafaqada loo yaqaano huruudda. Huruudda waxaa ka buuxdo maadada muhiimka ee loo yaqaano curcumin. Curcumin waxay ka gudbi kartaa waxa loo yaqaano blood brain barrier oo huruudka waxay si toos ah ula macaamilaysaa unugyada maskaxda. Haddaba huruudka guud ahaan jirka gaar ahaan maskaxda waxay ka nadiifisaa wasakhda ku hartay ee nadiifisaa oo waa antioxidant oo waxaa ka buuxda maadada loo yaqaano curcumin taasoo ah antioxidant. Sidoo kale huruudda waxay badisaa xasuusta qofka ayay badisaa. Sidoo kale waxay door muhiim ah ka ciyaartaa xifdinta iyo waxbarashada ayay door muhiim ah ka ciyaartaa oo huruudda waxay u wanaagsan tahay ama waxay sare u qaadaa caafimaadka maskaxda. Sidoo kale huruudda waxay sare u qaadaa kiimikaadka ay ku shaqeyso maskaxda kuwaas oo muhiim u ah maskaxda. Kiimikaadkaas waxaa ka mid ah serotonin iyo dopamine. Marka sare loo qaado maadooyinka serotonin iyo dopamine waxaa yaraanayo waxa loo yaqaano depressionka ama niyad jabka. Haddaba huruudda waxay u wanaagsan tahay maskaxda waxayna ka hortagtaa waxa loo yaqaano depressionka ama niyad jabka ayay ka hortagtaa. Sidoo kale huruudda maskaxda waxay ka saacidaa in la sameeyo unugyo cusub oo ah unugyada neerfayaasha jirka gaar ahaan unugyada neerfayaasha maskaxda. Sidoo kale nafaqaadka u wanaagsan maskaxda waxaa ka mid ah miraha bocor gaduudka. Miraha bocor gaduudka waxaa ka buuxo maadooyin aad ugu muhiimsan maskaxda sida zinc, copper, magnesium iyo iron. Haddaba guud ahaan maadooyinkaasi waxay u wanaagsan yihiin caafimaadka maskaxda waxayna sare u qaadaan shaqada maskaxda. Tusaale ahaan haddii aan soo qaadano maadada muhiimka ah ama macdanta muhiimka ee loo yaqaan zinc. Zinc waxay unugyada neerfayaasha jirka ama unugyada maskaxda ka saacidaa inay isku gudbiyaan fariimaha. Sidoo kale maadada loo yaqaano magnesium waxay sare u qaadaa xusuusta iyo xifdinta qofka ayay sare u qaadaa. Sidoo kale maadada loo yaqaan copper waxay ka qayb qaadataa in unugyada neerfayaasha jirka ay isku gudbiyaan fariimaha gaar ahaan unugyada maskaxda inay isku gudbiyaan fariimaha ayay ka qayb qaadataa. Sidoo kale maadada laga helo miraha bocor gaduudka ee loo yaqaan iron waxay ka hortagtaa waxa loo yaqaan brain fog. Brain fog waxaa la yiraahdaa qofka inuu ilaawshihiisa bato. Sidoo kale nafaqaadka u wanaagsan maskaxda waxaa ka mid ah lowska. Guud ahaan noocyada kala duwan ee lowska waxay u wanaagsan yihiin caafimaadka jirka
sidoo kale waxay sare u qaadaan caafimaadka maskaxda. haddaba looska wuxuu sare u qaadaa caafimaadka wadnaha. markuu fiicnaado caafimaadka wadnaha waxaa fiicnaanayo shaqada wadnaha, sidaasna waxaa sare ku noqonayo caafimaadka maskaxda. sidoo kale looska wuxuu ka hortagaa inay hoos u dhacdo shaqada maskaxda. sidoo kale dadka isticmaalo sidoo kale waxaa la arkay dadka si joogtada u isticmaalo looska sanado badan inay xasuustooda aad u fiicnaato. nafaqaadka u wanaagsan maskaxda waxaa ka mid ah vitamin C-ga. vitamin C-ga wuxuu sare u qaadaa shaqada maskaxda. sidoo kale wuxuu ka hortagaa in ay yaraato shaqada maskaxda. sidoo kale vitamin C-ga wuxuu door muhiim ka ciyaaraa xasuusta qofka. ayuu vitamin C-ga door muhiim ka ciyaaraa. nafaqada ugu dambeyso ee sare u qaado shaqada maskaxda waa ukunta. ukunta waxaa ka buuxo nafaqaad fara badan sida vitamin B6, vitamin B12, maadada muhiimka ee loo yaqaano choline. haddaba choline waxaa laga helaa qaybta jaalaha ee ukunta ayaa laga helaa. haddaba choline jirkeena ama maskaxda waxay ka sameysataa maadada loo yaqaano neurotransmitter. maadadaas marka waxaa waaye waa maadada neerfayaasha u kala gudbiso fariimaha. haddaba maadada loo yaqaano choline maskaxda iyo guud ahaan neerfayaasha jirka waxay ka sameystaan maadada loo yaqaano neurotransmitter, taasoo ah maado ay neerfayaasha jirka ay isugu gudbiyaan fariimaha.